xaaji cali cabdiraxmaan fiqi nin la oran jiray oo ku magac dheeraa xaaji cali majarteen baa la oran jiray wuxuu noolaa qarnigii 18aad culimadii Soomaaliyeed oo caanka aad u noqotay ayuu ahaa wuxuu ahaa nin culum badan yaqiin oo aan diinta kaliya ku ekayna culum badan oo culumta xataa Greek hore iyo xisaabaha iyo engineerinka waxa hadda loo yaqaan waagi la oran jiray cilmi masaaxaat iyo wax badan ayuu yaqiinay inuu wuxuu ahaa mawsuuci ah marka mawsuuci ha ahaadee lama fadhiyeen inuu wuxuu ahaa hadana ku camal falo oo dadkana gaarsiiya isaga laftiisuna jihaad galay soo diinta u faafiyo aad ku garanaysaa isagu wuxuu ahaa reer Nugaaleed agagaarka Garoowe ayuu ku dhashay 1780 meelahaas ayuu ku dhashay halka ayuu deganaa halka ayuu diinta ka bari jiray dadka ugu horeeyo waxa loo maleynayaa inuu yahay oo Soomaalida ah oo xajka tagayba inuu yahay ama dadka madowga yiraahdaan Soomaalidu yani dadka madowga ah oo aan carabta ahayn ama muslimka askara ahayn oo dadka ugu horeeyay oo xajka tagay ayuu ahaa qarnigii 18aad bilowgiisa bartamihiisa meelahaas xajku markaa wuxuu ahaa saan soo sheegay diinta ku camal falaha oo xataa mararka qaarkood ku jahaada waxaa la sheegay inuu xataa inta tagay meesha la yiraahdo Bombay iyo Hindiya uu masaajid ka dhisay masaajidka wali dhisan yahay magaalada Bombay la yiraahdo oo Hindiya aakhirka xajku soo wareegay wuxuu soo wareegay koonfurta Soomaaliya marka iyo agagaarkeeda gosha dhulkan la yiraahdo labada webi u dhaxeeya Jubba iyo Shabeelle ayuu soo wareegay markuu soo wareegana diintu aad u faafiyay dadkii uu ku kari waayay jihaad buu ku qaaday xirtiisii uu ciidanta ka dhigtay ayuu jihaad ku qaaday wax badan baa laga hayaa marka oo taariikhda xaajiga inkastoo wixii isagu uu qoray aan waxba laga hayn haddana taariikh badan ayaa laga hayaa oo meelo kale laga helay ama dadkii arkay hadday yihiin dad Yurubiyaana iyo hadday yihiin dad kale waxa ay ka qoreen baa laga arkaa waxayna uu qoray hadda carabiga uu ku qorayna aad bay u badnaayeen carabiga ku qori jiray waxay la Soomaali marka ma qorayna wadaadna uu ahaa sheekhu marka waxaan ka garanayaa oo hadii alla ku roon yahay warqad dheer oo u qoray wadaad isna sheekh ahaa dhagax buur ahaa marka waxa la yiraahdaa al-ajuba al-ghaybiyya lis-su'aalaat al-gharbiyya oo dheer aad u dheer waxaad ka garanaysaa oo kale waxa weeye waa jawaabihii yani qaybiga ahaa oo loola jeeday oo looga jawaabayo su'aalihii reer galbeed waxa markaa dhagax buur baa ah xagga marka aad bay u dheertahay waa risaale aad u dheer oo cilmi badan iyo ay ku jiraan mantiq waa ku jiro culum kale ku jirto carabi waa ku jiro ninba soo wadaadkaas soo weydiiyay wax wadaadku marka waxa uu qaatay inuu tijaabinayo aqoontiisa marka ayuu hadana u jawaabay marka aad bay u dheertahay culum badan baa ku jirta oo cilmi gaar iyo cilmi muslim oo ka buuxa marka si aan wax loo baran hadda ayuu u bartay waxa oo ah inuu culum badan oo aan diini kaliya ahayn wax walba ah uu yaqaanay buu ahaa aakhirkiisaan soo sheegay wuxuu ku dhintay meesha la yiraahdo marka wuxuu ku aasan yahay tuulada la yiraahdo cagaaran oo qabrigiisu ka yani ka halkaa lagu aasay waa marka dureedkeeda marka masafooyinka xaajigu tiriya marka uu ku saabsan diinta iyo wacdiga tan ugu caansan weeye midda hadda aan marin doono haddii alla idmo oo 3 xaraf aan ka marin doono alifka iyo ba'da iyo jiimka iyo xaada 4 xaraf ayaan marin doonaa oo wacdi weeye waxaana laga yaabaa in ay tahay maanso na soo gaadhay oo Soomaalida hore tirisay tan ugu horeysa waan hayno inay tahay ayaa laga yaabaa cidda ku xigtaana waa raaga ogaas baan qabaa inta na soo gaadhay xaajigu marka midaan wuxuu kaga hadlayaa marka aakhiro ninkan u faran dhibaatada haysan doonta hadhow ku dhici doonta wuxuu kaloo kaga hadlayaa dadka xusuusinaya yani malakul mawtka yani geerida wuxuu kaloo aakhiro dhibteeda ayuu tilmaamayaa dhibaatada taala wuxuu tilmaamayaa oo kale in yani in loo baahan yahay in loo saad qaato oo wax loo tabcada hadeer aakhiro wuxuu kaloo ka dagaalamayaa midna khuraafaadka oo kale waxyaalaha sanadka la yiraahdo Soomaalidu ay tiqiin oo aan diinta sal ku lahayn ayuu iyagana ka dagaalamaya marka wuxuu yiri alifiyeen ibnu aadni arin waad ka dhacan tahay ilaah waa ilaaheen dadna waa adoomadii eedaadiya ku ogaada nimaan aakhiru faran ereygan ku oran doono ma iga aqbalaysaa istimaacu waa doore udunaynka raarici annahaygaga amaarin adna laabta ku adkeen
maanaha aqoon gaaban maadaa adduunyaah ina eedama ilowday abtirsiinyaheennii amradyahow aqoon laawo aawa aabbayaashaa ragga meeshan lagu aasay waa wada asaagaa wadka duulkan aynabay adma wuusan ku arkayn mase wuusan ku ogayn mase waad ka adag tahay mase inuusan kuu iman axdiba ulahaydeen injiraha hadduu laayay waa inuu alaal yahay arxan inuusan garahayn nebigii ma aynanin istikfaarta ku hanuuna ajashiinna ka horow urur noolba lagu waani arrafo iyo soonqaad iid noolba la awaaji odayaasha kuu talin adse weli ma aabayne ma oboo kalaa tahay arwareegada adkaysta omos baa horreeyee allow yaa ogeysiiya inay eeri go'an tahay sanamkii kama idlaanin aftinta iyo doogada lo'da haatan igar weeye afagaal wixii dhalay mirig naaf unuungoyntii ab horay ka soo tiil marna oloshii kama daynin nina haatan aabbihii illi noolba kuu sheegay ahabtiina kuu naqay aan waa aamusahayaa wax afeefe iga tahay ninna yuu hadhow ooyin goor tala abaajiday